Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilah walaalayaal, muuqaalkani maanta waxaan uga hadli doonaa talooyin ku socota arday walba oo gabagabeyni raba sanad dugsiyeedka ahna fasalka afaraad ee dugsiga sare. Kusoo dhawaada muuqaalkani maanta. Ardaygu marka uu ku jiro marxaladda ugu dambeysa ee dugsiga sare waa uu ka duwan yahay marxaladihii hore ee uu soo maray. Waxaa jiro waxyaabo ay muhiim tahay ardaygu inuu diirad saaro oo uu la yimaado, iyo waxyaabo ay tahay inuu gabi ahaanba uu ka waantoobo oo uu ka weynaado. Marba haddii uu yahay arday shahaadi ah gabagabeyni raba heerkiisii koowaad waxbarasho, waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago talo walaaltinimo iyo masaaxiibtinimoba kula wadaago arday walba oo ku jira sanadkiisii ugu dambeeyey ee dugsiga sare, doonayana inuu natiijo wanaagsan ka dhaxlo imtixaanaadka ku soo wajahan dhammaadka sanad dugsiyeedka. Marka hore, Ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhiibo arrinkaada oo weydiiso wax walba aad ku haminaysid, waayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii tala saarta isaga ayaaba ku filan. waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh. ku dadaal alla ka cabsiga iyo cibaadada. waxaa hubaal ah in Ilaahay subxaanahu wa tacaala fahamka iyo xifdigaba kuu fududeynayo. waxaadna ogaataa guushu waxa ay kuu dhowdahay hadba intaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u dhowdahay. qof walba oo guul gaaray maalin ayuu go'aan dhab ah qaatay. adiguna inta aadan dadaal iyo juhdi bixin, qaado go'aan dhab ah una istaag sidii aad u noqon lahayd arday guulaysta oo naftiisa iyo mid waalidkiisaba ugu farxiya guusha uu ka soo hoyday waxbarashadiisa. waxaa jira arday badan oo ku fashilma marxaladda aad hadda adigu aad ku jirto. way jeclaan lahaayeen in ay jaaniska aad hadda adigu aad haysato ay helaan, laakiin hal mar ayuu ku ekaa jaaniskooda, waana midka aad adigu hadda aad haysato. buundo walba oo aad maanta shaqaysatid waxay kugu qormaysaa shahaadadaada. hal buundo oo aad maanta lumisidna waxa ay ka maqan tahay shahaadadaada. marka ardayo go'aan ku qaado in si xirfad ah iyo guulo ay ku dheehan tahay aad ku soo gabagabayso dugsigaaga sare. wax akhri. akhrisku waa meesha laisku dhaafay ee dadka ku kala tegay. ma jiro farqi idin dhexeeya adiga iyo ardayga fasalka ugu sareeya aan ka ahayn wax akhriska. ka dhigo akhriska caado. inaad wax fahamto waxaa ka horeysa in aad wax akhriso. sidaas darteed, isku day in aysan ku soo marin maalin gelinkeed aadan akhrin duruustaada. wakhtigaas ka dayacin. gebi ahaanba jooji wakhtigaada inaad ku lumiso wax aan khasaare mooyaane faa'iido ku lahayn. wakhtiga aad haysato isaga ayaaba iska kooban. haddii aad si dhab ah u fikirto, wakhtiga aad haysato iyo waxa ku sugayo wakhtiga ayaa yar. internetku waxa uu noqday waxa ugu badan ee wakhtiga ka dila jiilka soo kobcaya, dhalinyarta siiba ardayda. isku day in aad si positive ah aad ugu faa'iidaysato oo uusan internetku meel cidla ah kuu soo istaajin. ugu dambeyn, wakhtigaada wax ku akhri, wax ugu faa'iidayso, isku jaangooy howlahaada iyo wakhtigaada. cashar walba akhri inta uu qoyan yahay. midaasi waxay kaa caawinaysaa in uusan kugu adkaanin wakhtiyada imtixaanaadka fahamka iyo xifdiga. cashar aad hore u soo akhrisay una soo fahamtay waxayna kuu horseedaysaa midaasi dhiiranaan iyo firfircooni. waayo waxa aad dareemaysaa inaad hawshan mar hore soo qabatay oo uusan kaaga baahnayn juhdi iyo wakhti badan. samayso jadwal aad wax ku akhriso. kala nidaami maadooyinka aad qaadato. u samee jadwal aad wax ku akhriso oo kuu gaar ah. maadaba maalin u khasaasay oo keligeed aad ku diyaariso. markaas waxaa kuu fududaanaya inaad si sahlan u joogtayso akhriskaada, duruustaadana u kala nidaamiso
una fahamto. Insha Allah dadaala wuu gaaraa. Si guud ahaaneed dadaal iyo juhdi dheeraad ah ku bixi sana dugsiyeedkaada. Waddo walbo aad gul ku gaari kartidna horey u sii qaad. Si dhab ah naftaada ula hadal. Hana aqbalin inaad noqoto qofka dadka ugu dambeeya. Habdhaqankaada wanaaji. Si ka duwan sidii hore ku dadaal hagaajinta naftaada iyo akhlaaqdaada. Waxaadna ogaataa in markan aad tahay qof akhyaar ah oo u diyaarsan inuu noqdo qof mas'uul ah oo ku gudbay marxaladii ciyaalnimada. Waa inaad ku wantoodaa dhaqamada qaar kuwaas oo aad hore u lahayd. Noqo arday wanaagsan oo ka soo baxa waajibaadkiisa ardaynimo iyo midkiisa qofnimo labadaba. Ixtiraam u muuji bulshada aad ku dhex nooshahay iyo kuwa aad ku kulantaan goobaha waxbarashada. Uguna horeeyaan macallimiinta wax ku bara iyo ardayda aad waxbarasho wadaagtihiin. Noqo ardayahow muslim dhab ah oo carabkiisa iyo adinkiisaba ka ammaan helaan dadku. Isbar in aad dadka caawiso. Qofna ma guulaysto inta uu keligiis la rabo guusha. Caaba ardayda kuwa galaaska ah ee aad ugu wanaagsan tahay waxbarashada. Wixii aad fahamto ugu faa'iiday oo barf oo fahamsii. Noqo mid u jilicsan cid walba oo garab weydiisata. Ku tarbiyay naftaada wanaaga. Kaga tag bulshada aad wax la baranayso raad wanaagsan, ixtiraam iyo jacayl. Waayo waa meesha loo soo raadin doono feedback-gaaga. Adigana waa ku wanaagsan tahay inaad tababar ku sii qaadato si aad u wanaagsanaato noloshaada inteeda kale. Waxaan ku rajaynayaa guul iyo farxad. Insha Allah waxaan rajaynayaa in talooyinka aan kor ku soo xusnay inaad wax un aad ka faa'iidi doonto. Insha Allah.